xarunta xalane ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya shir 3 maalmood soconaya oo ay ka qayb galayaan aqoon-yahano Soomaali iyo ajaanib ah kuwaasoo ka doodaya xaaladda Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa shirkaasi soo qabanqaabisay aqoon-yahanada oo wax ka qora colaadda iyo nabadda Soomaaliya ayaa tala bixin doona siyaabaha wax looga qabanayo arrimaha ragaadiyay Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa wax ka barta jaamacadda Oxford ee dalka Britain, waxa aanu ka mid yahay aqoon-yahanada ka qayb galay shirkaasi. Khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray goor sii horeysay, waxa aanan marka hore weydiiyey cidda kulankan soo qabanqaabisay. kulanka waxaa soo qabanqaabiyey qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya muqdisho, waxaana dhaqaale ahaan taageeray dowladda Norway, waxayna isugu yeereen mutacalimiinta Soomaalida iyo ajnabiga ee dalka Soomaaliya wax ka qora qiimeeya xaaladda waddan ku sugan yahay. waxaana laga kala yimid dibadda ayaa lasaga keenay. dadkuna wuxuu isugu jiray Soomaali iyo ajnabi. waxay darsaan khilaafka iyo qalalaasaha ka sokow colaadda iyo dhibaatada jirta sida loo xalin lahaa. waa maxay ujeedada shirkan looga gol leeyahay? ujeedada ugu weyn waa in la darso khilaafka waddanka ragaadiyey, colaadda daba dheeraatay, mushkiladda laga dhixi kari waayey, kadibna loo helo xal oo mutacalimka Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayna ku howlan inay baaraan darsaan cilmi darsaan oo cilmi baaraan mushkiladda jirta, inay soo jeediyaan wixii ay darsayeen muddada dheer see loo xalin karaa, maxaa xaloo la heli karaa. marka hadda maanta lagu jiraa recommendationadii in la bixiyo, berina waa xiritaankii intan ka weynaan doonaa. waxaa kasoo qayb geli doona dhammaan wadamada safaaradahoodu ay joogaan waddanka, hay-adaha samafalka guud ahaan waaweyn. waxaa kaloo jooga dowladda Soomaaliya. tan ugu weyn de waa in dowladdana lala taliyo, ajnabiga ku howlan waddanka xal uhelidiisana lala taliyo. waa tahay Maxamed, sidaan ka warhayna iminka muddo 22 sano ayaa khilaaf ka taagnaa Soomaalida dhexdeeda. marar badanna aqoon-yahan, culimo awdiin, kooxaha kala duwan ee bulshadu waa isu yimaadeen oo talooyin iyo xal waa soo jeediyeen. shirkan iminka aqoon-yahanada Soomaalida la isugu yeeray muxuu kaga duwanaanayaa kuwii hore? xalka si aad soo saartaan sidee baa loogu dhaqmayaa? waa run muddo dheeraa la darsayey waddanka, shirar badanna waa la qabtay. kii ugu horreeyay hadda la xusayba waa 93 ayay qabteen Norway. mutacalimiinta xilligaa jirtay waa weynaa ayay cazumeen, waxna waa ay qorqoreen. waxaa ugu muhiimsan wax walboo kasoo baxa oo recommendation ahaan loo soo saaro sida loo fulinayo, cidda fulinaysa iyo halka laga fulinayo. marka waxaa kaloo ayada dhibaatadeedaba leh in oyna mudanna in la xuso mutacalimka laftirkiisii iyo mutacalimiinta inaysan isku raacsanayn khilaafka laftirkiisa nooca uu yahay iyo mushkiladda waxa ay tahay. laakiin waxaa hadda akhirkii heshiis lagu yahay bal in consensus la gaaro oo waxa la isu soo dhadhaweeyo. marka inuu shirkan ka duwanaan doono kuwii hore iyo kuwii dambe hadda maka caddayn karna, laakiin waxay ku xirnaan doontaa marka sida loo fuliyo iyo waxa ay lagala baxo ayaa wax walba ku xirnaan doonaan muhiimadooda. waa tahay Maxamed, saad sheegtay documentation iyo qoraallo ayaa la gudbiyey. adiga laftaada qoraallo ayaad gudbisay. qoraallada aad gudbisay maxay ka hadlayaan? annaga kayd wuxuu ka hadlayey sida looga bixi karo dhibaatada iyo dhinaca laga wajahayo. marka yaa dhib ku ah hadda wadankii oo hortaagan in nabad laga dhaliyo, sidee lagu dhalin karaa nabadaas, xagee laga marayaa, xagee loo mari doonaa. marka talada ugu weynaan bixiyey waxay tahay in dowladda Soomaalidu ay kaashato 3 qaybood oo mar walba hormood u ahaa ummadda Soomaaliyeed, dhaqankeeda iyo taariikhdeeda 200 sano ugu dambeeyey, kuwaasoo nabadeynta ka shaqayn jiray intaanan hataa qaran aanan noqon, oo ay ugu horreeyeen culamaa udiinka waddanka, oo ay ku xigeen kaabaqabiilada, 3na ay ahaayeen sugaanyahanada sugaanta tiri. in loo isticmaalo inay dib u heshiisiinta waddanka galaan oo loogu yeero dowladduna dadka noocaas oo kale ay kaashatay wato sumcadda badan ku dhexleh ummadda Soomaaliyeed iyo magaca. Maxamed, saad ka warhayso iminka culimo awdiinta lafteedii ayaa kala qaybsan, odayaashii iyo dhaqankii sidii hore iminka dadku uguma dhiirado oo iyaga laftoodii baynu aragnaa inay marar badan ay kooxo kala taageerayaan. marka si kale oo looga wareego ma jirtaa?
ha waa tilmaamnay khaasatan waxaan tilmaamay in culamada aan raacsanayn dawladda iyo kuwa kasoo horjeeda kuwa aan raacsanayn la kaashado oo loo yeero kuwa loo arkay inay yihiin neutral ama dhexdhexaad ay ka yihiin khilaafka siyaasiga ah. waa hagaag hadalkaasi waxaa u dambeeyey maxamed xaaji ingiriis oo wax ka barta jaamacadda Oxford ee dalkan Britain iminkana ku sugan magaalada Muqdisho isagoo ka qayb galaya shir ka socda